سودو صاحبي رمضان كريم مولهين لا أقبل وعمل ذو ناكسين إيرين قدنين بشبرك سنة رمضان كسودو هذا درس كين لوادي لجنيه إن لما قعب حي صدر نعطيه 16 كان سودو هذا عدد صلوات نصبكي يكريتان كي النبيجا نصبك النبيجا وأيت هاي إن أينو برنو سيد أينو كينو نقانا وفي عنطي وحنوي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن قسين بن مدرك بن مضر بن نسار بن معد بن عدنان هل كي يهويد النبي قلت هي آمنة بنت وهب بن عبد المناف بن زهرة بن كلاب بن مرة waxaanaad aragtaa in nebiga iyo hooyadii ay iskugu yimaadaan dhanka abtirsiinta awowga shanaad ee Kilaab bin Murra. Nebiga hooyadii waxay naaska jaqsiisay 7 casho. Kadibna waxa ay naas nuujisay Suwayba al-Aslamiyya. Intaa kadib waxa nebiga koriyay Xaliima al-Sacdiyya oo uu la joogay ilaa 5 sano 6 sano. Kadib waxa loo soo celiyay hooyadii isaga oo 6 sano jir ah ayaanay nebiga hooyadii Aamina geeriyootay. waxaan noloshiisa iyo koritaankiisa la wareegay oo garab ka u ritay awowgii Cabdulmudallib waxaana uu la dhaqmi jiray dhaqan aad iyo aad u wanaagsan oo aad baa ugu jeclaa markii uu dhintay awowgii waxa nebiga koriyay adeerkii Abu Talib nebiga oo ay da'diisu tahay 8 sano iyo bilo ayaa adeerkii la safray oo waxay qabteen dhulka Shaam halkaas oo lagu arkay astaamihii nebinimada laguna taliyay adeerkii inuu dib ku celiyo si aan dadka warkiisa kutubtii hore ku hayaa u dhibaatayn iyagoo ay ka tahay xin iyo xasidnimo markii ay daadiisu gaadhay 15 ayaa uu isla Shaam la soo qabtay maal ay lahayd Khadiija bint Khuwaylid oo ay iyadu gacan galisay si uu ganacsi u sameeyo waxaana la socday wiil ay dhashay oo loo oran jiray Maysara markii ay daada nebigu gaadhay 25 jir waxa uu guursaday Khadiija bint Khuwaylid oo ay da'deedu tahay 40 jir haddaba markaynu ka nimaadno dhacdadeena kooban maraynu tagno 13 aynu dhacdadan koobanna ka baranayno in dadka aqoonta ama rajayda ah wax badan aynu daryeelno ma ogin bari waxay noqon doono iyo halka uu ummadda uu ka geli doono eeynaan wejigiisa ka xumayn xaq alle iyo xaq aadanaba waxaana uu nebigu sheegay in qofka koriye ee daryeela qof aqoona uu isaga jannada kula saaxiibayo innaguna haddii aynu Soomaali nahay aad iyo aad ayay noogu dayacan yihiin carruurta guryaheena joogta ee aynu haysano ama cid qaraabada ay dhashay oo aynoo keeneen ama inagu ay ka soo kaxaysanay halkan wuxuu qoraagu noogu sheegay qiso uu isagu si iskiya oo la kulmay oo wuxuu oranayaa waxaan la darisahayd gabadh dhashay ubad badan inta ay koreen ayaa qaarkood la guursaday oo ay carruur dhaleen wax xaafadda la joogta inan yar oo ay gabadha guriga leh walaasheed ka dhimatay nolosha ilmaha yar ku nooshahay alla ayuunba korkeeda ayaanu ka aragnay jirdilka baaxadda weyn ee ay la nooshahay jeexjeexa wejigeeda ku yaala qofka arkay un baa sawran kara hawsha dibadda laga soo qabanayo iyada ayaa qabata si kasta oo ay uga tan iyo taagba weyn tahay afkeedu ma yaqaan dhulahadeenta way in la raro oo sida agab koronto ku shaqeynaya loogu shaqeeyo mooyee waxay ku dhulahaday sameeyay waxbarashada haba sheegin tani waxba kama aha boqolaalka carruurta ama dhirinta ah ee dhiigga laga shaqo guryaha hoostooda cid codkooda dabadda u soo saartana waxa safar xad ah in dulmiga aanu alle abaalkiisa inta badan akhriba la sugin ee daalinka ifku tuso hooga xumaantii uu falay labo qofku markuu yar yahay noo saaran miyiga oo laga helayo laba qodob oo kala ah inuu qofku afkiisa hooyo si wanaagsan u soo barto iyo labo inuu jir ahaan soo adkaado maadaama shaqooyinka miyiga laga qabanaya badanka ay yihiin kuwii u badan in gacanta laga qabto casharka saddexaad aynu ka baranayno amiyadda ay leedahay ammaanadu way guurku nebigu wuxuu Khadiija guursaday wax codsiga uu ka yimi iyada oo aad una dhacday habkii ammaanada lahayd ee uu nebigu sallallahu alayhi wasallam u maamulay maalkii ay u dhiibatay mas'uulkana uga dhigtay haddana wuxuu qoraa walgan wili wadaagaya qiso kale oo isagu loo waxaan oranayaa inaanu asxaab nahay oo shirkad ka mid ah kuwa agabka gawaarida iibiya mas'uuliyiinteeda ka mid ah ayaa mar uu ii sheekay wuxuu igu yidhi dhalinyartii waxay ka cabanayaan shaqo la'aan annaguna waxaanu ka caawinaynaa shaqaale la'aan oo waxaan ku wili sidee bay suura u tahay wuxuu igu yidhi waxaanu doonaynaa dad aanu ku aamino xoolaha ummadda ee aanu gacanta ku hayno iyaguna aragtidii ammaanada ma laha
xaqiiqada marka loo dhaadhacana kama soo baxaan howlaha loo eegmaday in ay ilaaliyaan. intaas ayaynu ku soo koobaynaa dhacdadeena maanta iyo 3 cashar. balankeenu waynu 30 cisho ee rabadaanta dhammaysana 30 dhacdo iyo 3 cashar. aad buu mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.